سعيدا كن ثريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي. الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. والليال خطبتنا waa mawsimi, waxay ka waramaysaa waqtiga aynu marayno si aynu uga faa'iideysano fursadda cimriga. oo dadku had iyo jeer islaamku wuxuu barayaa dadka sida ay uga faa'iideysan lahaayeen waqtiga. taasina waa siyaabaha cimrigu ku barakoobo, dadkuna ay ku kala dheereeyaan. qof wuxuu garanayaa waqtigani qiimaha uu leeyahay, uu ka faa'iideysanayaa. qofna laa yacrif walaa yadri, qofna kama warhayo. qodobo dhowra oo ilaa tobaneeyo ah oo la xidhiidha bishan muxaram ayaynu isdul taagi doonaa insha allahu. maxaa qalloocan, maxaase saxan, siday dadku u dhaqmaan. bishani horta waxay ka mid tahay bilaha ilaahay uu ictiraafsan yahay subxaanahu wa tacaala ee 12 ah. sanadka hijrigaa baa ilaahay ictiraafsan yahay. qur-aankuu ku sheegay, sharcigana uu ku jidayay, isagaa wax lagu tirsanayaa. isagaana bilahan xurmada leh afartii ay ka mid yihiin. ilaahay baa wuxuu uhi ina ciddata shuhuuri cinda allahi 12 shahra. tirada bilaha ilaahay uu ogol yahay in wax lagu tirsado lana tixgeliyo waa 12. minhaa 4 xurum, 4 baa xurmo leh. 4taa nabigaa fasiray calayhi salaatu wasalaam. 3 way isku xigaan: dulqacda, dulxija, muxaram. waa 3dan aynu 2na soo dhaafnay, midna ku jirno. sadataal, carafo, seko, saasay soomaalidu u yaqaanaan. bisha xajka la gutana carafa yidhaahdaan, tan iminkana seka yidhaah. tii kasii horreysay ee soonfur ku xigtayna sadataal ba yidhaah. 3 bisha kalena waa bisha la yidhaahdo rajab. nebigu wuxuu leeya waa rajabu mudar. magacaasuu ku tilmaamo nimanka reer mudar la odhan jiray, qabiilo carbeed bay ahayn. si gaara bay u weynayn jireen. magacoodii baa loo bixiyey bishaa iyada ah. waa bisha shacbaan ka horeysa ee rabadaan mid u dhaxayso. bilaha iyaga ah ee xurmada leh, ilaahay baa xurmada siiyey subxaanahu wa tacaala, oo tafdiilka allah iska leh. al-ashkhaas wal-azmina wal-amkina, dalka iyo dadka iyo waktiga ilaahay baa kala dheeraad siiya. cidina kuma qabsan karto, waa makhluuqaadkiisi. mid walbana siduu u tilmaamuun baa loo raacayaa si ajri iyo abaal wanaagsan loo helo. markaynu eegno bishan iyada ah, waxyaabaha la qabanayo waxaa daliilku uu dhiiri gelinayaa soom, in ilaahay daraaddii loo soomo, soom sunno ah. hadduu qofku ku nadrana dee waajib buu noqon. muslim wuxuu warinayaa min xadiidi abi hurayra, nebigu wuxuu uhi afdalu siyaami bacda ramadaan shahru llahi lmuxaram. siyaamu shahri lmuxaram, soom waxaa ugu fadli badan ramadaan kadib soomka la soomo bisha shacbaan. taariikhdiisa marka la eego soomkaa isaga ah ama shacbaan, bisha muxaram iyo soomka la soomi jiray waktigii jaahiliyadaba waa jiray. oo xataa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ka markuu joogaya waa soomay. oo carabtii reer quraysheedna way yaqaaneen. waxaana laga yaabaa inay ka dhaxleen diintii nebi ibraahim. markuu haddaba nebigu madiine tegay calayhi salaatu wasalaam, ayaa wuxuu arkay maalinka 10aad ee muxaram iyada oo ay soomayaan qoladii yuhuudda madiine deganaa, siduu bukhaari warinaya min xadiid ibni cabbaas. markii uu nebigu weydiiye u yihi maalinkan ay soomayaan waa maxayna, waxay ku idhahdeen waa maalin wanaagsanoo ilaahay baa fircoon ka nabadgeliyey nebi muuse, fircoonna halaagay, sidaa daraaddeed baanu u soomaynaa. ciid maaha, waa soom waxaa laga warramayaa. waxaa lagu weyneeyey cibaada, laakiin maaha in la ciiday. dadka qaarkood baa ciid u daliishada, ciidda waxba la cunaa ee lama soomo. rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi nimanka nebi muuse anaaba uga dhow, awliyadii ilaahay iyo muslimiintii baanu isku nahay. iyagu abtirsimaan iimaan lahayn baa hayaa,
intuu soomay buu ummadana faray inay soomaan soomkaa isaga ah maalinkaa cashuura muxaram ay 10 ka tahay soomka la soomayaa ramadaan ka hor waajib buu ahaa oo nabigu wuxuu faray waajibnimo in muxaram la soomo 10keeda bil walbana sunnanimo 3 cisho laga soomo laakiin markii ramadaan ilaahay uu waajibiyay waajibnimadii waa laga qaaday maalinka cashuura waxay u guuray faradnimadii soomku ramadaan maalinka soomkiisuna sunno ku haray culamaa usul waa ku idhaahdo waa nasqun min badalin akhaffa ilaa athqala min shay fudud baa laga soo guuro ku ka culus baa loo guuray xagga takliifta iyo xilka cisho quraa waajib ahayd 30 cisho ama 29 baa dadkii la saaro farada fadligeedana badan nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu ka warramayay fadliga maalinkan uu leeyahay waxa uu siyaamu yawmi ashura ahtasibu ala allah an yukaffira as-sanata allati qabla hadithki muslim maalinka ashura soomkiisa aan soomayo ilaahay waxaan kaga sugayaan kaga rajaynayaa inuu iga dhaafo dambigii iga dhacay sanadkii hore ee la soo dhaafay carafana waxa uu nabigu wuxuu ilaahay ku dhaafayaa sanadkii hore iyo sanad soo socda labadaa dambigooda alla ku dhaafaya saasaan ilaahay ka rajaynayaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale oo bukhaari ku sugan ibn cabbaas warinayo waxa uu yiri ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وإلا هذا الشهر يعني رمضان waxaan arkay buu bisha nabigu aad ugu dadaali jiray ama soomku aad ugu dadaali jiray wuxuu ahaa wax kastaba uu ka badan jiray soomkiisa maalinka cashuura bisha muharram 10 ka tahay iyo ramadaan labadaas ku dadaali jiray waxa sunna ah maalinka sagaalaad in isagana la raaciyo oo la soomo ibn Abbas waxa uu leeyahay radiyallahu anhu markii uu nabigu faray calayhi salaatu wasalaam asxaabtu inay cashuura soomaan ayaa waxay ku yiraahdeen yuhuudda sooma maalinka isaga ah oo weyneeyo markaasuu nabigu yiri hadii aan noolaado sanadka soo socda waxa aan isku dari doonaa ka sagaalaad baan soomi doonaa la asuumanna taasi haddaan sii baaqi ahaado adduunka aan sii joogo ilaa qofku waa geeri u jooge waxaan soomi doonaa maalinka taasuuca ee sagaal ay tahay bisha muharram nabigu ma gaarin calayhi salaatu wasalaam ee adduunku ka tagay maadaama uu niyooday culimadu waxa ay leeyihiin waa in la soomaa maalinka sagaalaadna marka 3 martabadood buu leeyahay sida loo soomayaa in maalinka tobnaad keligii la soomo ta u fadli badan oo in 9 iyo 10 la isku daro iyo ta ku xigto 3 cisho in la isku daro 9 10 11 iyo ta saddexaad oo maalinka tobnaad keligii in la soomo 3 martabadood buu leeyahay marka la eego rasuulku sallallahu alayhi wasallam xikmadda uu soomay maalinkaas sagaalaad culimadu waxay leeyihiin 3 arrimood baa suuragal ah mid waa taxadiidka laga fahmayo waa khilaafan lil yahuud nimanka yahuuda iyo nasaarada uu nabigu aad inoo faray inaynu khilaafno oo doorka dadka muslimiinta ay leeyihiin waxa weeye in iyaga lagu daydo wixii diin ilaahay loogu dhawaanayo iyo wixii dhaqan iyo akhlaaq wanaagsan laakiin ma aha iyagu inay daba socod noqdaan iyo kuwa dadka ku dayanaya taas waa mid waana jawaabtu asxaabta siiyay markii uu kor haday iyagu maalinkaas uu soomaan inagu 9 ku dari waxa labaad oo xigmadu ay noqon kartaa bay leeyeen culimadu maalinkan tobnaad inaan keligii lagu daynina maalin kale la raaciyo sidii jumcahaba nabigu uu yiri yaan loo soomin keligii ama sabtida laakiin sabtidiina maalin hal la raaciyo jumciina maalin hal lagu daro waxay noqon kartaa arinta saddexaad ihtiyaad iyo dadaal loo dadaalayo maalinkan tobnaad waxa laga yaabaa in taariikhdu ay si isaga ka riixdo ama aad maalinkii la seegto marka laakiin 9 ku darto waad helaysaa maalinkii 3 arrimood bay noqon kartaa haday dhacdo qofka inay iskaga darmato bisha bilowgeedii
ووحو قرنوا بشو قورتا أي بلاتي محرم أما أي دماتي بشي كهر ريسي بشي قورتا بلاتي بو قرنوا محرم محو ياليه qofku waxa uu sameeynaya soddon buu ka dhigayaa dilxija ila dilxija weyn soo ciidno waa xajkii baa la guto waa la garanayaa marka in soddon laga dhigo kadibna saddex cishu qofku soomaya 8 9 10 marka uu waafaqi doona insha Allah soo ixtiyaad ugu sameeyo oo u dadaalo صوم يوم عاشوراء ماذا يكفر nabigu wuxuu ilaahay waxaan ka rajeynayaa maalinka caashura markaan soomo inuu ilaahay iga dhaafo sanadkii hore dambigii dhacay wuxuu dhaafayaa muxuu yahay imaam an-nawawi rahimahullah iyo ima kale way ka hadleen fi sharh al-muhadhab waxa uu leeyahay ilaahay wuxuu ku dhaafayaa yukaffiru bihi as-saghira wa yukhaffifu bihi al-kabira ilaahay dunuubta yar yar buu ku dhaafayaa dunuubta waaweyn ilaahay inuu kaga fududeeyo laga yaabaa qofka taana waxa loo daliishanayaa rasuulku wuxuu ka waramay sallallahu alayhi wasallam markuu qofku umraysto umrada ilaahay wuxuu kaga dhaafayaa sanadii hore iyo tan imika wixii u dhaxeeyay ee dunuubaha labada salaadood waa soo kale labada xaj waa soo kale ida jtunibatil kabaa'ir marka kabaa'irta iyo dunuubta waaweyn laga dheeraado halka wax laga fahmayaa iyadu toobad inay u baahan tahay dambigii weynaa ee qofku galay dunuubta dadku ay kala galaan ee nafta leh ee maalka leh ee sharafta leh ee qaarkeenba qaarka kale uu ka galayo dhammaanteed kulluha kabaa'ir waxa weeye waa dambiye waaweyn ee saqiira iyo kabiira ma kala la dambiga dadku kala galaya saadaradeed iyadu toobad bay u baahan tahay ilaahayna waxa uu kaga fudaydinayaa amaladan saalixa ah ee qofku uu la imanayo saadaradeed dadku waa inaanay ku kadsoomin dadka qaarkood baa aniga waxba igu filanba labadan maalmood soomkooda la yiri sanadii hore lagu dhaafay iyo ku soo socda markaas ay iska fudaydsadaan cibaadooyinkii kale ay sameyn lahaayeen marka arintaana waxa culimadu xusayaan li'adam li'alla yaqtarra an-nas bisiyami hadhihi al-ayyam صوم يوم عاشوراء waxa culimadu ka hadlaan qofku ma soomi karaa hadii lagu leeyahay qallihii ramadaan ama soom qallaha oo lagaga yeeshay nadaru galay ama kafaara gud soomamkii caynkaas ahaa waajibka hadii qofka lagu leeyahay ma soomi karaa saddex qowl bay leeyihiin culimada qaar kamid ah waxay leeyihiin soomkaas kama ansaxayo mar hadii fara lagu leeyahay deyn baa lagu haystaa adiguna sadaqooyin baad bixinaysaa horta deynta waajib ay iska bixi deynta iyo dardaarankii arrimahan horta iska khaaraji sunnayaasha kale inta aan u gudbin qayb kamid ah culimada waxa ay leeyihiin waa karaaha say u badan yihiin waa karaaha laakiin wuu ka ansaxayaa soomkii sunnaha marka hadii faral lagu leeyahay faralka waajiba nabiguna wuxuu calayhi salaatu wasalaam fadaynullahi ahq wa an yuqda deynta ilaahay baa ku haboon in iska bixiyo wax walba ka haboon oo laga horeysiinaya qayb kamid ah culimadana waxay yiraahdaan yaa juuz wuu soomi karaa qofku soomka sunnaha iyada oo faralkiina waqti u hayo uu gudan doono insha Allah sidaa daraadeed qofka muuminka waxa uu haboon inuu dumadiisa safeeyo deynta ilaahay u degdego inuu iska bixiyo faradka uu soo qaleeyo inta wuxuu sii raacin lahayn bid'un wa mukhalafat shar'iyyah في يوم عاشوراء بدعوين عصريا iyo horaba u soo jiri jiray oo dadka qaarkood ay sameeyaan maalmahan waxa kamida bid'atu shi'a rawafid nimanka shiicada la yiraahdo iyo bidcadooda tasaarkaysaan hadaad iclaamka la socoto ayaamahan buuqa ay shiicadu sameeyaan iyo bidcooyinkooda iyo dhibka ay u geysanayaan naftooda iyo maalkooda iyo dadkooda waa wax diin la'aan waxa lagu leeyahay waxa loo barooranayaa Hussein ibn Ali radiyallahu anhum jamii'an aalu baytkii rasuulka nin kamid ah oo la dilay oo inanku rasuulka awowga wahaaya oo Hussein ibn Ali baa dilkiisii loo barooranayaa oo maalinta ku beegnaa oo markaas dhig la iska sii deynaya dadkii oo madaxa iskala dhacaya seef oo silsilada dhabarka iskala dhacaya oo la isqaawinayo dhulka isla dhacaya ayaa arkaysaa lagu leeyahay meelaha lagu xajaya Karbala la yiraahdo marka dhibka haysta dadka muslimiinta waa wax dadka ummadda islaamka sheeganaya wax badan oo bidca ay ku khilaafsan yihiin waa jiraan
dadkii muslimiinta ahaa ay kaga baydheen waxa weeye runtii wax aad u dhib badan oo jahli iyo ku salaysan inxiraaf xagga caqiidada ama ay baydhsan yihiin waxaa aad u la yaab badan ingiriisku waqtiyadii wadamada gumaysan jiray uu maalgelin jiray oo waxa uu maalgelinayaa si uu isticmaarsado nin dadkii xorriyadda doonaya ka mid ah u yimid oo reer Iiraanaho xorriyaddii baanu doonaynaa buu ma xorriyaddii wali may gaarin ilaa dadkan horta xuquuqul insaanka la baro oo insaaniyadda lagu soo celiyo oo waa kuwan dadkii wali naftooda ay dilayaane bar horta ilaa loo bislaayo dadku inay insaaniyadda gartaan isticmaalka laga qaadi maayo bulaha marka taa macnaheedu waxa weeye suuradda muslimiinta inuu xumeeyo iyo inay yihiin dad dhaqan xun oo aan lagu dayan karin baa uu maalgelinayaa cid kasta oo markaa wax khuraafaad wadata waxa ay sameeyaan waxa aad u la yaab badan weeye hadda kaba waramayne taasi waa mid ay tahay qofka muslimka inuu aamino wax diin inaanu ahayn diin la'aan uu yahay waqtiga ay soo bilaabantayna ay aad uga digeen culimada muslimiin wakadalik bidcatu nawaasi waxa iyagoo la ficiltamaya dhinaca kala tegay nimanka loo yaqaan nawaasibu shaam oo iyaguna in badan oo kamid ah aalubaytka ay dhaliili jireen aalubaytka rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka iyagoo la ficiltamaya shiicada ayaamaha waxay ka dhigtaan ciid bay ka dhigaan taasuuca caashuura iyo bisha muharram oo dhan inta shiicadu dhiiga ay iska sii daynayaan iyaguna fantasiya la dhigaya cunno badan baa la cunaya sidii ciida dhar qurux badan la xidhanaya iyaga lagu xumeynay xagga kala la tegaya taasina la asla laha fi shariica diinta iyaduna waxa asala kuma laha in sida loo ciido oo loo dabaal dego dareenka noocaas la sameeyo laakiin inta aynu soo xusnay ku sugan sharciga quraan iyo xadiisba waa inta uu nabigu noo jideeyay calayhi salaatu wasalaam in ilaahay loo cibaadaysto ayaamahana la weyneeyo sida aynu soo xusnayna loo soomo sidaasay qabaan culimada muslimiinta iyo ahlu sunna wal jamaa sida inuu aaminayeen ku talagalaynaana ilaahayna ajri laga helayaana waa sidaas weeye اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة الأنبياء اللهم من أرادنا بسوء وأراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه يا أرحم الراحمين واكفيه بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من سكاها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تستجاب لها يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأقم الصلاة